bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasha iyo dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee daafaha dunida ee nagala socda. halkani waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. waxaana weli inoo socda barnaamijyadeennii taxanaha ahaa ee aan ugu talagalnay bisha barakada iyo fadliga badan ee Ramadaan oo aan 10kii habeen ugu dambeeyay ku jirno. haddaba ciwaanka barnaamijkeena waxa uu yahay maxay tahay ducada ugu wanaagsan ee ugu habboon ee lagu duceysto habeenka Laylatul Qadriga qofkii uu Allah waafajiyo. waxaa nasiib leh ruuxii uu Allah subxaanahu wa tacaala waafajiyo habeenka Laylatul Qadriga ah oo ka fadli badan 1 bilood ama 83 sano acmaashii la sameynayay. waxaana uu Allah subxaanahu wa tacaala qadaray in habeenkaasi laga dhigo mid qarsoon oo si loo sameeyo dadaal iyo asbaab dheeri ah oo cibaadada ku saabsan. qofkii uu Allah subxaanahu wa tacaala waafajiyo habeenka inuu dareemo ama garto calaamadaheeda qaarkood, waxaa wanaagsan inuu badiyo acmaasha wanaagsan iyo ducada. waxaana ugu wanaagsan inuu ku duceysto ducadii uu nabigeena sallallahu calayhi wasallam qaray inay ku duceysato hooyadii mu'miniinta ee Caaisha, rabbi raalli ha ka noqdee, taa oo ahayd allaahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii. macnaheeduna ahaa allahayow waxaa tahay mid cafin badan, cafintana jecel ee i cafi. waxaa allah subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu inaga cafiyo dhammaan dunuubteenna oo inoogu bedelo ajir iyo xasanaad inoo horseedo aakhiro inaan jannadiisii وعناد كنا قالوا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم آمين. هل كاني وصومالي فويس نوروي وحان إذن لسعود سيني أني وعبد الله بن حسن شيني.